kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan mar kale waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale abdad kale xiisaha leh ee mar kale maanta laga qoro arrimaha Bollywoodka kuwaas oo asdaan mar kale daawadaashina ku taxambarta tusmada filmada waa la wadaagi kartiin meel walba oo joogtaan habeen wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa kahor Salman Khan filmka Bajrangi Bhaijaan waxaa iska diidan jilayaal dhowr ah kaas oo ugu horeeya jilaaga American sanadihii ugu dambeeyay Salman Khan wuxuu yahay mid la iimaanaya filmo blockbuster noqda waxaana sidoo kale u raacsanaa filmkiisa Bajrangi Bhaijaan kaas oo la daawado 2015 waxaana filmkaas oo ah filmada noocyada alaaba uu Salman Khan uusan ku soo bandhigin action kaas oo alaaba lagu gartay Salman Khan inuu yahay filmadiisa mid action u badan kaas oo filmkaas oo qoray KV Vijayendra Prasad kaas oo ah aabaha dhalay director-ka weyn ee SS Rajamouli wuxuu sidoo kale qoraagaas warbaahinta uu la wadaagay warbixin la xiriira filmka Bajrangi Bhaijaan kaas oo ka horsheegay xafladda International Film Festival of India kaas oo goobaha lagu qabtay KV Vijayendra Prasad ayaa waxa uu sheegay in Salman Khan ka hor filmkaas hogaaminta uusan ka naqan American wuxuu ahaa mid filmkaasi loo soo bandhigay waxaana qoraagan uu sheegay inuu la kulmay American walaashiis ee Nikat Khan kaas oo ay isaqaaneen sidoo kale American ayaa loo gudbiyay saata American filmkaasi iska dhigay meel hoose waxaana la arkay American kaas oo filmkaasi markii loo sameeyay saashadaynta inuu filmkaas oo ka helay sidoo kale arkay in uu tiyaatarada ka daawado filmkaasi asagoona filmkaasi ku ilmeeyay kaas oo sidoo kalena muuqaalkaas oo noqday mid ka dhex qarxay gudaha internetka wareys uu bixiyay kadib filmkaasi Salman Khan ayaa sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in American uu ahaa mid filmkaas u soo jeediyay Salman Khan wuxuuna Salman Khan uu sheegay American ayaa waxa uu sheegay in Prasad uu iimaado sidoo kale uu soo diray American wuxuu sidoo kale uu sheegay in American uu yahay mid deeqsi leh American ay sidoo kale wuxuu sanaayeen jilayaasha iska diida filmka Bajrangi Bhaijaan sidoo kale waxaa Rockland Fentakash kaas oo ah film soo saarayaasha Bajrangi Bhaijaan wuxuu kala hor u xaqiijiyay in jilayaal dhowr ah kuwaas oo ka kalimid shabakadooyin kala duwan ee filmkaasi ay iska diideen ee Bajrangi Bhaijaan wuxuu sidoo kale uu arintaas ka sheegay xilli wareys oo siiyay Canada Daily Udayana-Fani wuxuu sheegay in qoraalka filmka Bajrangi Bhaijaan uu ahaa mid qaatay 4 ilaa 5 sano Rajnikant, Allu Arjun, Puneet Rajkumar iyo American ay waxa uu sheegay in ay iska diideen filmkaasi sidoo kalena ay meel dhexe iska dhigeen qoraalkeena ay naqdiyeen sabab iyaga u gaar ah ugu dambeynna director-ka filmkaasi waxa uu sheekada la wadaagay Salman Khan taas oo si farxad leh oo sheegay in Salman Khan mashruucaasi uu ku saxiixday sidoo kale SS Rajamouli ayaa sidoo kale filmkaas iska diiday inuu director ka noqdo asagoo aabihiis oo la wadaagay sheekada filmka sababtaas u gaar ah taas oo sidoo kale jilaagan am director-kan oo ah mid u soo socda filmkiisa Bahubali The Beginning kaas oo la daawado July 10-keeda ee 2015 halka Bajrangi Bhaijaan tiyaatarada la saaray isbuuc kadib ee 17-da July ee 2015 Bajrangi Bhaijaan ay ugu dambeyn waxaa director ka noqday Kabir Khan waxaana filmkaas uu ku saabsanaa nin qalbi jilcan kaas oo sidoo kale Pakistan aadayo si gabar halkaas soo dhunto dhagool oo halkaas ugu celiyo filmkeena dib u lumudowaan doorkaasna ay waxa qaatay Salman Khan asoo sidoo kale filmkaas uu noqday mid qaybta box office-ka iyo tiyaatarada gelgeliyay 2015 wuxuuna filmadii gaaray darajada 300 crore waxaana sidoo kale loo xariiqay inuu kamid yahay filmada Salman Khan ugu fiican kaas oo ebad oo ka soo muuqdo filmkaas ayaa sidoo kale waxaa kula jirtay Kareena Kapoor Khan oo doorka hogaaminta filmkaasi lahayd ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filmka Salaam Funky kaas oo hogaamiye ka tahay tirshada Kajol ayaa wuxuu noqday mid la siiyay qaybta shahaadada ee filmkaasi daawashada iyo sidoo kale filmkaasi inta daqiiqo oo socon doona ama inta saac oo socon doona ayaana sidoo kale la ogaaday Bollywood actress Kajol ayaa waxay tahay mid markaan dib ugu soo laaban doonto shaashadooyinka waaweyn iyadoo sidoo kale ku soo laaban doonto filmkeeda Salaam Funky filmkaas ayaa sidoo kale wuxuu yahay mashruucii labaad oo ka soo muuqan doona jilaaga Fishal Jadwa kadib filmkiisa ku soo caanbaxa ee Irani Muqraji ee hogaamiyeed ee Mardani 2 filmkan ayaa director waxa ka harifay wuxuuna filmkan ku saabsan yahay taariikh dhab ah oo ka dhacday gudaha Hindiya waxaana filmkan ku saabsan yahay in dhibaatooyinka Sujata iyo sidoo kale wiilkeeda Funky kuwaas oo dhibaatooyin nolosha dhabta ah ee dhexda ka galayaan kaas oo sidoo kale filmkan uu yahay in wax badan laga baran doono macnaha nolosha dheer filmkan wuxuu yahay mid hortagay qaybta faafreemta filmada qolada faafreeban waxaana filmkan uu qaatay shahaadada U certificate kaas oo ah Universal Acceptance filmkan sidoo kale daqiiqooyinka socon doona wuxuu yahay 136.50 second
waxaana sidoo kale filimkan marka loo fiiriyo saacad ahaan loo dhigana uu socon doono 2 saac iyo sidoo kale 16 daqiiqo iyo 50 second. filimkan sidoo kale waxay ahayd mid xaflad loo qabtay Arbacadii taas oo shaashadaynta filimkaasi ahayd iyagoo sidoo kale jilaa dhowr filimkaasi kasoo qayb galeen. filimkan sidoo kale waxaa kasoo qayb galay qayb shaashadayntiisa Amir Khan kaas oo muuqaal gaar ah filimkaasi ku leh. filimkan wuxuu ahaa mid jimcadan la daawan doono. intaan kusoo xirnay warbixinteenan marka la soo kordhay kaas oo aan ku eegayna filimka Bajrangi Bhaijaan iyo jilayaasha iska diidan filimkaasi kuwaas oo aan xiisweyn lahayn oo aad la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filimada meel walba oo joogtaan. waxaan kaga mahadcelinaynaa warbixinadan leeg inoo saartaan sidoo kalena aad noo sheer garaysaan waadna ku mahadsantihiin arrintaas kankiisa xigana nabadgelyo.